dhulkii baan ka kacay waan socdaa cidaan rabaan u tagay ruuxan rabaan sii tuuray hay baan ahay maanta markay tahay wax kale aan ku awoonaya gabdhaha cad baan maanta fiirsanaya shalay ma fiirsanaynin maanta soo joogin calcad urbaad rabay la asxaab ilmi ku liira yal maanta fiirsanaya yal garatay shay lama fiirsanayno wabeegadiina yeemba kani waa Faarax Cabdi Cumar oo ku dhawaad 35 sano gurguuranayay mana jirin rajo uu ka qabay in mar uu dhulka ka kici doono kadib markii isaga oo 5 sano jir ah uu waayay lugihiisa الله يرضى يرسي إنه نقول على بيجرسي بعد شيء أساس العام شوي نور شيء أساس شلعي وعارف بعد لا يحمل يقول دعي ودعي وسوحي لو أتبع حنون كاس الجاري أنت جاري وسوق جاري وانفعنا نور شيء ده هاي ومروق قيسنا الدمان هاي نكسر قرب بدل ما نشرب لا يا بورك واحد يوم وس ديرتي وذي غير ما تسوي صورة شيء جاي يوم قنجري رفعتك بورك واحد يوم قريب ها ما أنت لك على هذا يعني كما دانو ما عاجسو من الدريم وحسي حليجة وكشرة تبرعات كدد كدنيرتا بل سوى الرجالية فرحديسة إيا وقتي سبب أهبي مساكين تيا دنيرتا هذا وحن بدون سين إن العق $50 وصوصة قيستي مراد وجوه مريكنك ويبل كنتك بيها يوحي أبو باهاتو كل عام إن شاء الله تعالى أولادنا الله كو عافية آمين هذا يصير دكتي إذن كبع الله إذن كلمة يا أخري الدنيا هو يدني وهو عيال أجانا كورينيسا يدني حنوسنتها إسكتها الله يسن ويلا إلى شيء حاجة أصو هذا يصقره أنت سبيل كدكتان وهديبة وحلقة هلا مركا حنقول بشهرين إنما هو يدني إن شاء الله تعالى إن أهل بيل شوكتا هدي اللي هذا بيل كستا ويل مريكن كشوكا مراد اللي هذا يا هو يدن كفالة قاضي waxay noqonaysaa qoyskii 42 ee agoonahe la kafaalo qaado marka way bisharadaas aan ku wadaa bil kasta hadii ilaahay yiraahdo lacag $50 ah oo joogto ah yaad heli doontaa hadii la yiraahdo bishii ugu horeysay waata Allah idin leeyahay wiilka iyo idinka baan xiriiriyay wiilkuna ma aqoonine idinka iyo wiilka Allah idin leeyahay akhri adduunka Allah idin leeyahay ajir iyo abaal ba Allah idin ka siiyo عبد الحكيم حاشي يري ومد كمد أهل يرضى مامور كمجلة قبر الدهر وانا سمفلا وهل إيا ولال كدكتا أقونتا دنيرتا إيا هاد بعدة وإسلية هاي واحتر أي أباهيين وانا كان قاعد بالك أنا مالك الروح ده لو عفشو لكن أدمن فعله والله إلا بكرة مرة ما وانا كده لك يكعي وكذا قالك قفك بلاين كل وانا ساعات أقول بس ولا سؤالي قاعد حجري قاعد لك هاس أتكون ساعات على وجود بيجي مركي وأي مادة ku dhawaad 5 bilood waqtigiisa ugu badan waxa uu ku bixiyaa caawinta danyarta waxaana lagu qiyaasay in uu bixiyay muddadaasi lacag ka badan 3 milyan oo bera oo ay sadaqaysteen walaalayaal Soomaaliyeed oo khayrka iyo wanaaga jecel barnaamijkani markaynu qiyaasno inta wixii ku baxay daily waxaan u bixinaynay dadku qurbaha waxay inta badan jecel yihiin inay qayb loo qariyo oo la muujinin qaybna in social media la soo geliyo marka العلس lacagta aan bixino daily u bixino laga soo bilaabo maalintaas ilaa maanta waa $300 waa $13,500 bir marka lagu dhufto 5 biloodna waxay noqonaysaa lacag 2 milyan iyo dheeraad bay noqonaysaa waxa kale oo noo qabsoontay intaan barnaamijkan ku jiray 42 qoys oo agoon la kafaalo qaaday oo biil joogta maanta qaata $50 iyo $100 bay u dhaxeeyaan taqriiban iyaduna markii lagu dhufto xilligii aanu hawshan bilowna ilaa maanta waxay noqonaysaa lacag milyan 1 milyan oo bir bay noqonaysaa marka 3 milyan baa 5 bilood gudahood yaanu ku bixinay oo nagu qabsoomay mararka qaar waa mid masaafooyin dheer u jira tuulooyinka baadiyaha ah ee ku teedsan magaalada Qabri Dahar si uu u helo dad danyar ah oo u baahan garab istaag iyo caawin saaka aroortii Cabdi Xakiin anagoo isla joognaa ayaa lagala soo hadlay tuulada dalaad inay jiraan dad masaakiin oo u baahan caawin oo wiil qoriyaan markaas uu ku jiro marka isla markiiba anagoo la joogno Cabdi Xakiin wuxuu go'aansaday dad walaalaha lacag ay la soo baxeen in uu soo gaarsiiyo dadkaasi masaakiinta ah ee markaas tuulada dalaad ku sugan saakana loo sheegay inuu jiro wiil dhibaataysan oo ku sugan dalaad marka waxaan gaarsiinaynaa lacag $50 oo soo sadaqaystay wiil muraad la yiraahdo jooga Mareykanka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa wiilkani xaalad caafimaad baa ka muuqata dhakhtar buu baahan yahay
waxaa kaloo u baahan yahay inuu helo gaarigan naafada loo iibiyo marka dadka walaalaha khayrka jecel ee muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa in walaalkaas wixii lagu caawin karo in lagu soo garab istaago insha Allah taala lacagtaasi waa $50 lacagtan marka wixii aad u baahan tahay soo siisa insha Allah caanaha iyo wixii kolbaad u baahan tahay lagu siiyo yaa da ahaan ma weyno oo waa dhalinyar haddana hadalladiisa muuqaalkiisa iyo habdhaqankiisaba waa mid ay la dhacaan shakhsi walba oo ay kulmaan maadaama oo uu dhashay hadal dabacsan iyo naxariis rabbaaniya cabdixakiin waa tusaale nool oo loo baahan yahay in dhallinyarada deegaanka ee qaarkood maanta ay ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo iska fadhi maalayacniya in ay markaasi kaga daydaan wanaagga uu u samaynayo shacabkiisa